qoto waxyaabahan ay ku shaqaystaan limaada dadka caanka ah bay ku shaqaystaan dadka caanka ah bay ku shaqaystaan cid uga horeysay soo bandhigsan faraha iyagu jijiidaya waa arkay waxay uga jeedaan kuma dambaabi karayo wali daahirkooda muslimnima iga muuqata islaamnima iga muuqata haba cusaad ha noqdaan oo dunuub fara badan ha la soo jaharaan oo aad aragtid qaybtood laakiin aniga waxa iga muuqata islaam de shaygii walaal anigu waxaan kaa doonayaa aan maanta uga digi lahayn dadka baan kaa doonaya aniga mukhtaar ahaan waxaan doonaynaa ducaada tiktoka ku jirta annagoo ku wada hadlayna afkooda inaanu ka degno haddii caddeyn dhab aad la timaado anagu dhegta waa noo wada taagan tahay khayr allaha ku siiyo igana raalli noqo إن شاء hadalkan الله kugu badbaado بارك الله فيك جزاك الله كل خير أستاذي إن شاء الله وان كيني دونا وحي كلا دمن أوردن إن شاء الله تبارك وتعالى الله أكشرفه ولا العمر إن شاء الله تبارك وتعالى ماشي الريكوست وبوحة دور قف بان كسارة مركا دق دق وصعد إن شاء الله تبارك وتعالى السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمة الله ورحمة الله مردود علماء الله وإذن سلام يا دمان dadka meesha ku jirto dhammaantiin akhyaarta waa idin salaamaya akhi baarak allah fiik ilaahay ha ku barakeeyo masalada wax weeyaan Soomaali halkee laga galaa dee masalada wax in weeyaan iikaadiya baa leeyahay request ha soo dirsanina in yar iikaadiya qof baan soo saaraya ana idin soo wada saari doonaa ma yeelayaan ma sugayaan markaaba way buuxinayaan maasha allah horta inoo bil mardud insha allah hawshan maxaad ka maasha fahansantahay adigu bal anigu waan wareersanahay iga dhaadhiciy adiyo sheekh dheegow aan idiin ducay idinkaa culimadaydiya maya maasha allah baarak allah fiik horta hadalkaagii waa wuu saxsan yahay walaalkeena inkastoo asaga oon ku dhawaaqin oo dhihin nimankaas waxa waa gaalo weeyaan oo afkiisa ka soo bixin laakiin wuxuu yidhi nimankaas waxay la shaqaynayaan shaydaan bay la shaqaynayaan de qofkii hadduu contract la galo oo shaydaanka contract la galo de contractigana waxa weeyaan waxyaabaha wax weeyaan waa inaa maaragtay ilaahay yani an tushrika billaahi weeyaan marka qofka hadduu maaragtay oo ilaahay ku kufriyo de maxaa usoo haraya de islaamkii dhan wuu ka baxayba marka waa masalad khatar ah weeyaan marka masaladan waxay u baahan tahay caddeyn bay u baahan tahay qofka muslimka ah يعني islaamnimadiis maaragtay si fudud maaragtay ma loogu saari karo biddanni maaragtay ma loogu saari karo laabudda min yaqiin baa u baahan tahay maaragtay masalada gacan in la taagtaagana ani u maleemayo mataqaanaa in oo yani laga mid noqonayo dadkaasi laana waxa weeyaan hadda for example mathalan ani clip yaro soo duubay oo waxaa ka dhigay kaanahu fukaha baa ka dhigay ma fahantay sheekha asagoo garkiisa u jijiidaya waxaa dhahay bal hala soo baaro waxa weeyaan waxaa u malaynaya inuu yahay mataqaanaa qolo oo yani garka sidaas u jijiidaan marka yani rubama atawaham ma fahantay sidaas inaa u dhigo qaabkaas u dhigo calaamadaas inaa u arko yani qolo gaar ah ama inaa dhaho ninkan maaragtay sheekhan waxa weeye waa suufi weeye suufi ayaa sidaa garka u jijiido oo markay maaragtay ku jeesjeesaya macnaa sunnada markay ku jeesjeesa marka sidaas u jijiidaya marka inaad tuhmo saara sheekha waa laga fiican yahay marka يعني لابد من يعني وحوين من بينة أو واضحة أو عد مرتين إلا لا ما ذو وين ونمكاس إنه يهين ضد أو كمد يعني وحلاقي أبا ضد كان إنه جهل مرتين أوقع يعني كتهي أو أرنتان أو سمينه من باب إيش التقليد وأوقتين ده وحوين أنا وحنا قني ضد أو مرتين وحنا قني ومقلدين فقط وحي أو قلبيتك أكو أرجنا إيو dadka maaragtay caanka aan ku aragna bas inaad taqliid ku sameeyno oo gacmihii dhaqdhaqaajino waan anagoo ogeyn baa waxaa sameynayna waxyaabo maaragtay oo yani oo kufri maaragtay keenay ayaa laga yaabaa inay maaragtay qofku inuu sameeyo marka مثل هذا اولا قبل كل شيء waxa يقام عليه الحجه يقام عليه الحجه والله sheega waxa la leeyahay iska ilaali arintan aad sameysay waa arin oo maaragtay wax weeyaan waxa laga yaabaa inaad ku gaalowdid maxaa yeelay xarakadan iyo qaabkan oo saan u dhaqmaysid waxa iska leh dad oo maaragtay cabadat ash-shayatin ay iska leh marka qofkii abduu maaragtay aad law aqamta alayhi al-hujja خلاص بعدين wax maaragtay cudur daar oo asaga lahaanay ma balaha moogtahay hadii ku sii socdo oo wali wixiisa sii wato idan hada insaan wax weeyaan idan huwa taabi'un lahum laakiin qabla hada adoo maaragtay u sheegin oo wixii maaragtay aad
maaragtay dusha ka saartid aad dhahdid maxaa la yidhahdaa shayddaana u shaqeyn waa laga fiicnaa insha allah tacaala dadkaas waxaa leeyahay dhallinyaradaasi fiiriya walaalkiini ma qaldamin idinkaa waxaa isdhigteen mawdic tuham qofkii isdhigana maaragtay mawdic tuham laa yaluumanna nafsahu yani asaga ha is eedeeyo dad kale yuusan eedeyn haddaa wax maaragtay laguu shaambadeeyo adaa iskeentay maanta hadda ani aan baxo oo baar maaragtay ha istaago dee la dhaho cumar wax weeye waa qof maaragtay qof oo maaragtay khamri cabaayo haddaa lii dhaho anaa maaragtay waxaas isku keenay maxaa yeelay anaa waxaa maaragtay lugahey ku aaday meel oo maaragtay mawdic tuhama anaa meeshaas aaday marka dhalinyaro waxaan iska dhaafa wax kasta idinka inaad soo qaadatiin oo reer galbeedka aad ka soo qaadatiin iska dhaafa gacmihiin saa ula laabaysiin waxyaabaha maaragtay iska dhaafa wax walba u fiirsada waxaa maaw shay oo maaragtay diinteedii ka hor imaanaya ma yahay hadduu shay oo maaragtay diinteedii ka hor imaanayo ka fogaaw laajli daalika waxa weeyaan yani laa tadac nafsaka maaragtay mawdic tuham ma aqaan in ay fahmayso in kale maaragtay marka intaasaan rabay insha allah tacaala baaraka allah fiikum hada wallahu aclam waxaan rabaa inaan jazaakum allah inaan qayb yar waa ku yar daro yani waxaan jirtay moogta waqti yar oo dhallinyaronimadeedii adigu qabla 5 sanawaat 5 sano ka hor oo kale 2018 ama 17 baan garanayaa yani waxaa igu soo dhacday taqliidkan hadda nimankan reer galbeedka inay jar badan kaa tuurayso waxaa jiray sawir ay facebookayga yaalay oo facebookyada aniga sawiradii hore waqti waan u waayay aan ku dhilido laakiin dad baa waxay waqti u heleen ay kusoo fagaan marka waxay soo saareen ayaama dhowad sawir isha oo kale waxyaabo beri hore aan ku ararki jirnay dadka khadka waxaan moodi jiray wax iska cajiib ah waxaana iska leba ayaa iska leh waxaan ka daawaday dadweynaha ishaas anigoo sidaa leh baa ku jirta adigu 2017 baan galay sawirkaa marka ayaama dhaweyday waxaan faarka ay ku sheegaan ay soo qabanayeen bay waxay lahaayeen shaydaan uu caabuday hawlahaas oo kale committee waa calaamadii shaydaanka marka waxaa dhici karta yani taqliid oo kale inay noqoto sidaas aanan u kasaynin aanan u garanaynin inay sidaas oo kale ayagana ka noqota ayaa dhici karta midda labaad haddii ay ayagu yiraahdaan uma shaqayno oo ma nihin anagu eliminaatigan dad islaam oo muslimana way nahay daahirkeenu ku qiimaynaynaa wallahu yatawalla saraa'ir wixii dambe ay ugu laabtaan bacda nasiixa ay ugu laabtaan waa dad ku shaambadaysan weeyaa laakiin waxaan jeclaan lahaa bal hadda in dhulka loo yar dhigo maadaamo calaamadaas keliya wax dhaafsan aynan haynin in aniga waxay ila tahay yani ina bacda dhanni ithmun ijtanibuu kathiiran min adhanni so ilaahay ma lahayn in badan oo badan oo badan oo badan ka fogaada baa ilaahay leeyahay malaha qayb ka mid ah dembi keenaya hawshana waa hawl aad u adag weeyaan siduu walaalkeen sheegay waa gaalimo waa booska sixirkuu taagan yahay limaada nimankan saaxiriintu soo kontrakti lama galaan shayaadiinta waa kontrakti bay la galaan saaxirkaa kan rumaysta ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waciidka uu ku soo yani axaadiista waad garanaysaa iska daa saaxirka kii rumaysanayey marka hawshan waa hawl weyn oo gaalnimo keenaysa weeyaan anigu in dib loogu laabtaan jecel lahay dib loogu laabto boqolkiiba waxaan rabaa in yar inaad ka tiraahdaan dadkan ma garanaysaa jahligu hayo ma garanaysaa caytamaya ama mataqaanaa yani wax fiicnayn soo qorqoraya soo sheegaya maxaad ka dhihi lahayd labadiinan شيخ بن مردوف هذا مناسبة تفضل إن شاء الله كل تفضل بعدك إن شاء الله ضربة وكوحقة الله جزاك يكرمك الله خير جزاك الله الله تبارك كل إذا أرضوني هذا شما هين والله شغليكم أرنت أصويلة هي ستاه ولكن علماء السلف من باب الإخلاص مركي كور رميان حاجرته علماء waxay dhihi jireen culamadii hore salafku cajiib bay haayeen wallahi waxay dhihi jireen ikhlaasku horta nooma taam yeelmin oo nooma buuxsamin ilaa cayn أسأل الله الله عافية الله عافية الله عافية الله عافية اللهم رب عافية الناس سريع ودقدق إن شاء الله نعم اذهب البأس اشفى أنت الشافي لا شفاء لا شفاء
فالله يقدر السقامنا ولا الله ألم يا الإلهي